قلنا لما عاين موت ترى waxaan marayay suuqa doontoonka marka qofkii cadda iga soo horbaxaba sankan taagay waxaan dadani ogay baan huruufayay waxa sida kulay walayna caay moogta trash waxay hoosta ka leeymaan wixii garbage ba halkan maraysa Mareykanku barigii hore wuxuu aad u maagmaagay dawladaha waaweyn oo ishayn jireen ay la level ka yihiin China iyo Russia iyo hadda Soomaaliya suuqa ku jirta marka aad baan u warwari aad baan u yaxyahay waayo anoo sharaf baan ku mari jiray hay adaar kaahin bay ilaahan moogtahay hay adaar kaahin she is famous oo marsan yara anda sira abruj haniya jab anoo suuqa maray waxaan taraashki balkan maraysa marka waan xumadooday adu qofka jabhadaada maxaad ka garanaysaa marka umadu way yaabaan hadaa xisbi baad isu disheen may مدين بعد سود شين ماي ده نوع معناه قبيلة دي بالله معناه كريوان والله ستوري بالله مر abka Ramad Bay waa ab ku sahlaya adiga oo joogo goobtaada shaqo nasiina ama gurigaaga inaad asxaab ehel ama shaqo wadaag aad u diri karto qarashkii aad doonto Ramad Bay waxaad ku isticmaali kartaa 20 gobol oo Mareykan ah sida Texas iyo California adiga oo u diri kara lacag guud ahaan Soomaaliya iyo inta Soomaalidu degto Ethiopia iyo Kenya inta waxa dheer in xiriir wanaagsan la leeyahay bangiyada Ethiopia qofkii doortana loogu diri karo waliba sharafka ugu fiican ama ugu macquulsan ayaa lagu siin doonaa George walwalka hadda la soo dag abka Ramad Bay Bismillahir Rahmanir Rahim آد بندي سلام يا خيارته يعني أهل الشرف كماش يسويمي ما شاء الله صاحب هذا يوم يدم بماش فديه لكن شركة وكل ولجي ما نايمانين وهاي ولجين ياللهن صدر ما ينان قانون موقت ولجين لما عاين موقت ترى هذا واحد مري سوقه دون تونكا مركا قف عدا يجسر بحبه سنكان تاجي واحد dadani ogay baan huruufayay waxa sida kulay walayna caay moogta trash waxay hoosta ka leeymaan wixii garbage ba halkan maraysa de madaxana la saari jiray anigu dadkan wadankan waa la soo shaqeeyay waxaan ka shaqeeyay hay'ad la yiraahdo Welshare International 20 sanad dadkan tram iyo xaafadooda la shaqeey jiray dad aad wanaagsan weeyaan dad wanaagsan baa ku jira waxa ku jira caruurtayda Afrika aaday oo aan soo celiyay qolo airportka waxay winter bay jaakadahi airportka igu keenay baa ku jira dad aad u wanaagsan baa ku jira ehlu sharafa aniguna wadanka waan jecelahay xitaa anoo gaariga wata hadaan qashin ku arka dhulka waxa laga yaabaa intaan joojiyo inaan qaado oon turo saan wadanka u ilaaliyo marka wax xun bay nagu dhacay faa'iidana haduu leeyahay haw daymaan la'aanina way namideeyay taram abaalaan ugu hayaa horta inuu namideeyay ترام هذا يلسنينا طلبات واحد يسوي يمي ودن كان ورياش عالم كودا من صوت يشوجان الباب والبيكلين واحد يلاقيهم حدث كانوا من صوت تبيض يجي كل سنة واحد قالين مولشني واحد قالين كلينيين ولا هاي واحد كان لو يردني معلمين تاني دل يردني وبردني تراجيدني أدوك صوتوا لسامبوسهني نوي برتين واحد سامبوسيه قرط سامبوسية شاهي بيكهلان واحد تيها أورينا this is a شاه شاه means tea oh my god it's nice marka aad baa horta la inoo bartay Mareykanku barigii hore wuxuu aad u maagmaagay dawladaha waaweyn oo ishayn jireen ay la level ka yihiin China iyo Russia iyo hadda Soomaaliya suuqa ku jirta marka adduunka aynu ku caan baxnay iyo inagu midownay waa faa'iido weyn weeyaan marka waxaan idin kula talinaa midooba Trump haduu og yahay guushu noo soo ciyay midnimada halka kaga haya xitaa dad baa meelaha ka hadla dhalinyaro hadasha youtuber hadla waxa xun xitaa hafidinina mid baa igu tiri waynu midownay laakiin qaar baa waxay lahayn ha sheegin baan waxay la lahaa ha sheegin waxayna wanaagsan kaliya bilahan oo dhan faan baynu ku jireynaa يا وينو فانينا وينو مدوبينا وينو وناكسنانينا وينو اسكو دوبمينا ان ددكي انو هيليي ku jira governorkeenu inoogu jiro wiilkeena maayirka inoogu jiro kulligood waynu xusuusnaanaynaa kulligood waynu hiilinaynaa
وان اوغنahay Soomaalidu waa dad dhiig leh in yar weenu yara fudeed yar ay nagu jira fudeedkiina aynu joojino oo dhexdeena ah dadka kale aad baynu ixtiraanaa martida waa la inagu yaqaanaa inaynu sooriyeyno martida soo dhaweyno kulay qof Soomaali bartay wuu jeclaanayaa waayo aad baynu dadka isaga xilsaaraa laakiin ixtiraamka dhexdeena aynu badsano saddex isha horta runta markaan idin sheego wallahi waan xumadooday aad baan u warwari aad baan u yaxyaxay waayo anoo sharaf baan ku mari jiray hay adaar kaahin bay ilaahan moogtahay hay adaar kaahin she is famous oo marsan yara anda sira abruj haniyad jab anoo suuqa maray waxaan dhahay taraashki balkan maraysa marka waan xumadooday ciyaalkeena inaynu moraalka u dhisno wadankeena aynu xusuusnaano kolay kuwii inaga dambeeyay wadankeena way og yihiin waxa inagu dhacaya waxa la inagu caayay iyaga kamid ah Soomaaliya waxaan leeyahay madaxda caruurtooda ma dhimato taajiriinta caruurtooda ma dhimato dagaalada ma galaan waa masaakiinta yaryar ba markay kursiga doonayaan jaranjarada ay ku sii fuulayaan waa dadka dan yarta waryaaraha Soomaaliya nin madaxa wiilkaaga yaan loo dilin si uu kursi ugu raadsado dagaalana hadda socda wadankeena ka hadla Allah kala qaboojiyo dhibaatooyin baa iska jirjira miya la maaga hadan meelaha magacooda sheego wadnihi bay noo galay hadaad meel sheegta dhinaca kale kugu bedelayaan wadnihi baa biyana noqday marka Allah dajiyo Allah walaaleeyo dadkeena Soomaalidu waa walaalo kulli wada walaalaynu nahay aniga ilmaabtiyada Hargeysa ay joogan Boorama ay joogan Beledweyne ay joogan Bulanburd ay joogan Jowhar bay joogan waxay joogan Gaaris bay joogan Jabuuti bay joogan dhagax buur iyo qabri dahar ay joogan iyo jigjiga iyo diridhab ay joogan meel walba ay joogan family baan nahay dad isku afaynu nahay dad isku diinaynu nahay dad isku aragaynu nahay xitaa waanaga hadda cabaayadahaasaan wada xidhanahay idinkuna saasaad isugu wada egtihiin la kala garan maayo marka walaalayaal walaalooba waxa la inoo caayay waa filiqsanideena mid kale mid baa wuxuu ka sheekeeyay maxaad ku garataan maxaad isku laysan Soomaaliya wallahi waan islaam jabhada kacay oo ayka oo jabhadiinu ma uniform ay xidhnayeen mid red iyo mid green iyo white iyo mid kala xidhnay seed ku garanaysaan anagu idin ma kala garanayne adu qofka jabhadaada maxaad ka garanaysaa marka ummadu way yaaban hadaa xisbi baad isu disheen may ma diin baad isu disheen may taa noo macnay qabyaaladii baa loo macnayn kari waa long story baa leeyahay marka shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Imara Luxury Homes qasri aad u dheeriyo dhismo wada muraayada shirkad noo dhisayso dhaqso kuugu diyaarin waa Imara Luxury Homes Imara Luxury Homes waxay ku haysaa dhismayaal aad u dhaadheer oo qaybo kala duwan oo guryo deegaana ka kooban lehna dhammaan adeegyada xaafaduhu u baahnaayeen dabaq kastana waxa uu leeyahay masaajid madrasada quraanka supermarket cafeteria ceelbiyood wiish u gaara kaamirooyinka ammaanka baarkinka gawaarida goobo carruurtu ku ciyaaraan hoolal jiim iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar waa mashruuca Imara Heights waxaana laga hirgeliyay magaalada Nairobi aaga madaxtooyada oo ah goob aad u deegaan wacan faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda